iiraan ayaa xogo la soo helay waxay u gudbisay dhexdhexaadiyaasha Bakistan qorshe ka kooban 3 qaybood. heshiis haddaanu la galayno Maraykan qorshaha aan wadano waa 3 qaybood ay yiraahdeen. qaybta koobaad waa saan marxaladda koobaad, marxaladda labaad ilaa marxaladda saddexaad. haddaba marxaladda koobaad waa in dagaalka gabi ahaanba ay ku dhawaaqaan Maraykanka iyo Israa'iil ay ku hayaan Iiraan inay joogsaday, iyadoo sidoo kale la helayo damaanad qaad ku saabsan inaanay mar dambe dib u bilaabi doonin dagaal. midda labaad in xayiraadaha lagu hayo dekadaha Iiraan ee dhinaca badda iyaguna si degdeg ah loo qaado, iyadoo sidoo kalena lagu joojinayso Iiraan iyaduna weerarada ka dhacaya Hormuz oo ay markaa furi doonto. marxaladda labaad loo gudbi doono markaa kadib waxay noqon doontaa in dhexdhexaadiyaashu iyagu ay markaa maamulaan arrinta ku saabsan marinbiyoodka Hormuz iyo in markaa meel la isla ogol yahay maraakiibtu ay mari karaan la hagaajiyo. haddaba marxaladda saddexaad ayaa waxay noqonaysaa in markaa kadib laga wada hadlo barnaamijka nuclearka Iiraan iyo arrimaha kale ee taagan oo ay ka mid tahay Iiraan arrinta ay maalgeliso kooxaha muqaawamada ama awlaadeeda gobolka, arrimaha in laga wada hadlo. marka Iiraan waxay u gudbisaa leeyahay 3 marxaladood aan diyaar u nahay inay wada hadalladu maraan. Bakistan ay u gudbisay, Bakistanna Maraykan ay u gudbisay. marka waxaa leeyahay 3 tallaabo haddii la qaado Trump waa guuleystay midna ma dhihi karo. ninkanna waxaa la jecel yahay waa ku guuleystay dagaalkii anaa raayay anaa saara, laakiin hadda waa loo fakaray. marxaladda koobaad horta waxaa la yidhi iyadoo nuclear laga wada hadlin, iyadoon wax kale laga wada hadlin, waa in dagaalka inuu joogsaday lagu dhawaaqaa. nuclearkii dagaalku ka bilowday waxay weli lagama xaajoonin. waa in markaa arrinkaasu uu noqdaa arrin ku saabsan wada xaajoodka bilowgiisa inuu u noqdo, damaanadna la helaa, weliba dalal damaanad qaada arrinkan inaysan soo noqonayn. waa marxaladda koobaad waayo, u fiirsada. marxaladda koobaad sidoo kale waxaa ku jira in dhammaan xayiraadaha la saaray la qaado, dekadaheeda wixii xayiraada saaran oo dhan in meesha marka laga qaado, wixii dekedaa cunaqabatayntan Maraykanka uu leeyahay in markaa meesha laga saaro. waxaa sidoo kale ku jirta Iiraan iyaduna markaa inay furayso ogolaanayso in Hormuz la maro. taas waa marxaladda koobaad.